السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصحابتي قالقة أنا وحنا كينج سولفر waxaad si toos ah si caadi ah si qurux badan aad iga daawaneysaan waa King Solfer Media run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay in adiga hadda aniga ay daawanayso waqtigaaguna aad anigu isiisay haba yaraadee ama ha badnaad intaba run ahaantii King Solfer waa qof aad u yaqaan waxa ay tahay bini'aadanimada iyo sida loo qiimeeyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtiga aad anigu isoo gelisay in anigu aad daawato sidoo kale hadii aad tahay qof ka cusub channelka King Solfer Media waxaan ka codsanayaa inaad subscribe garayso like-na taabato comment-toona aad soo boobto share-toona aad iska raaciso intaas waa raacis weeye lagama tago daas waa raacis waayahay asxaabta qaaliga ah ee muuqaalkan ahaantii aad baan ugu qiireysanahay waxaan doonayaa inaan ku taabto arin aad ii dhibtay arin aan awoodi waayay inaan ka aamuso aan awoodi waayay waxa suuqa la soo galiyay in ninka la yiraahdo Dayax Dal Nuurshe iyo xaaskiisii quruxda badneed ee uu ula baxay The Boss Lady iyo ninka la yiraahdo Dayax Dal Nuurshe in ay kala tageen isfureen banaankooduna kala mareen walow barnaamijkaasi ama hadalkaasi uu yahay mid aanan sal iyo baar toona lahayn hadalka isaga waa hadal la iska yiri waa ku turkuteen waa hadal la iska yiri macnaha aan lahayn sal iyo baar macnaha sal iyo baar waxa laga jeedaa aan ahayn mid la soo xaqiijiyay ka fog xaqiiqada macnaha maxaa yeelay taasi waxa cadeynaya ninka lagu sheegay inuu xaaskiisa furay ee Dayax Dal Nuurshe inta aan u gudagalin page-kiisa dhow ku leeyahay Facebook ee Dayax Dal Nuurshe uu ku soo galo magaciisa saxda ah ama magaca caanka uu ku yahay wala uusan ahayn magaciisa saxda Dayax Dal Nuurshe magac kale la yiraahdo adiga daawad waxaan ku leeyahay Dayax Dal Nuurshe magaciisa saxda ah di aad taqaano comment-iga hoos noo soo qor waayahay hadal haaskani ama hadaladani suuqeedka ah waxay suuqa soo galeen saacado ka hor ay suuqa soo galeen xalay ma gaaraysa u malaynaya waa saacado wuxuu suuqa ku jiro adigu xalay bay bilaaween wuxuu soo dhigay 4 saac 31 daqiiqo xalay marka waa war suuqeed shalay magaalada soo galay la dareemay badankiisuna maanta faad garteen ma marka isaga ayaa dafiraya oo diidaya oo raali ah diyaarad baa socotay raali ah dadar nagu soo godhacmeeyay xamar waa magaalo waayahay asxaabta qaaliga ah waxa magaalada la soo geliyay Dayax iyo gabadhiisa asaga ula baxay The Boss Lady bal magaca inta la eg buu ula baxay ma gabar oo si fudud ku dareemiyaad meesha idin muuqata buu yahay The Boss Lady iyo asagu inay karteen suuqa la soo geliyay waxa soo geliyay YouTubero aanan xogta xaqiiqada dhabta ah aanan haynin iyagu meelo bay ka qiyaas qaadan karaan wax bay si u fahmi karaan laakiin ma aha markaad wax si u fahanto inaad xaqiiqada la soo istaagto adigu ay xaqiiqo ku noqoto hadii aad si u fahanto inta soo istaagto waa inaad tiraahdaa qurux badan sidaas bay anigu ila tahay sidaas ayaan u maleynayaa sida King Solfer uu sheegaba adiguna sida uu adeer taagnaaw anagu hadii aan xogta soo aragno waxaan idhahnaa taasi waa xog ee xan ma aha laakiin markay xan noqoto oo aan la hubin xan oo waxaan la hubin sax qof markaad xamanayso waxaan aan hubin baad ku xamanaysaa wax haday xaqiiqo tahay xaman meedo asaga aad kala hortagaysaa mugtaa marka xantu marka taa waxaan idin idhaahdaa adeertan xog maahe waxan macnaha waxaan kala jeedaa adeersal ee baar annagu nooma laho xaqiiqadu ma hayno xaqiiqadu ma hayno laakiin sida baynalta laakiin xaqiiqadu marka hayno maxaan idhahnaa adeer waa sida waayahay haddaba xaqiiqadu war ka fog bay YouTubero soo tabiyeen social media Facebook qoraal badan baa yeela muuqaal dad baa iska soo duubay wax uu sheegaya laakiin waxa arrinka asaga beeniyay Dayax Dal Nuurshe talo muxuu soo qoray page-kiisa waxa ku soo qoray hadallo aad u qiimo badan hadallo qofka ay ka yimaadayaan aysan been iyo aysan ka noqon karin maxaa yeelay hadalladu waa kala dareemi kartaa marka kal iyo laab inay yihiin iyo in kale Dayax waxa uu leeyahay waad waalateen waliba xadka ayaad dhaafteen dhammaan dadka beenaalayaasha ah farxiya ma ahan xaaskayga kaliya ee waxa ay tahay farxiya sidoo kale
caruurtayda hooyadood ahey waa saaxiibtayda waa noloshayda waa farxadayda waa go'aankayga koobaad cidna si gaar uma taagayo balse faraha kala baxa arrimaha aniga iyo xaaskayga The Boss Lady waayahay wuxuu leeyahay sidoo kale dadka waaweyn ee YouTube-yada ku soo qoraya Farxiyo iyo Dayax baa kala tagay ama gabar kale la guursaday waxba uma dhimayo gabadha islaameed waxba uma dhimayo Farxiyo macnaha gabadha islaameed la banaankeena ka mara sidoo kale waxa uu soo raaciyay Farxiyo waxaan ku doortay aqoon waxaan ku doortay aqli waxaan ku doortay karti waxaan ku doortay go'aan waxaan ku doortay xishood afgaabni deganaan qaabka iyo kalsoonida wajigeeda ka muuqda sidoo kale waxa uu leeyahay intaas bay ila nooshahay maalin codkeeda maqlay maalin aad codkeeda maqasheen idinkuma jirto sanadaha anigu ay ila nooshahay macnaha qof afgaaban oo wuxuu kala jeedaa xishood badan waxa uu si raacay Dayaxo aniga aad iga qusliyay waxa uu si raacay gabadhaasi oo kala jeedo xaaskiisa waa dayuurad aan baalasheedu cidna qaban karin ama aysan jirin cid qabataaye Farxiyo heerkaasi lama yaso nolosha ay ku nooshahay iyo guriga ay ku nooshahay waxa looga yeeraa boss ama micnihiisu yahay mudanaha The Boss Lady thank you ayuu soo raacay adiguna waad mahadsan tahay ayaan macnaha ku leenahay waad dareemi kartaan meesha ay ka joogto xaaskiisa iyo sida uu kalsoon yahay iyo sida uu u jecel yahay balse waxaan leeyahay ummadda dadka afka la galayo idin waxba aan ogeyn dadka caadiga la gala oo annaga la gala oo dadka kale la gala oo meelaha la buuda laakiin qoys markay noqoto markay family noqoto markay noqoto dad isqabo oo caruur dhaxtaalo markay ay noqoto dad caan ah oo family ay macnaha qoys dad noqoto adeerka gaabso waa ceeb waxaad ka hadlayso waa dad isqaba oo gabar iyo wiil isqabadii oo freer ah oo family ah waxaad ka hadlayso dadka adeerka leex baan leeyahay taas waxaan idin leeyahay marka adeero Dayax warkiisu waa cad yahay anna waxaan leeyahay Allah idinku isku kindaayo oo noqda kuwi isku waara marna aanan kala baasmarin waxaan solfar waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh